السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر. نبيك كسليا والدينتي دبتنا هلو دعاء والدينتي دبتي والدك يقصير لي مدة مسلمين تهي إنك أنت نور إلهي هينون نحريستو إلهي دميقنا نحرافو نبت قليو إيه نحريس وإن الله كبرينا والدي سعود وين يددك الصومالي هذا شرفت بدنو markasta xiriirku uu wanaagsan yahay iyo iswaraysiga dadka waxa isu haya waxa weeye iswaraysi iyo xiriir wadaag iyo dood wadaag baa dadka isu haysa xabagta isu haysa waa inta Soomaalida waliba in yar caawa haddaan yara faaleeyo arrimaha inagu cusub horta marka hore waxaan maxaa ahayd ka dadka Soomaaliyeed ka qancinaya dad fara badan oo ila soo xiriiray oo isharax iyo maxaad shaqadii u diiday iyo waxaas fara badan oo yiri waa kula jeclay waxaan leeyahay nimayahow meel inta qabiil iyo qabyaalad qofka lagu dooranayo yaan xisb lagu dooranaynin ee madaxweyne baarlamaan soo xulaya aanay ahayn ee ay tahay oday qiirmiya oo qalinka loo qabanayo saxiixa halka magaciisa loo qabanayo dalka future-kiisu dul saaran yahay oo baarlamaankeeni kuwa dul saaran yahay oo kuwaasi dalka ay u yihiin kuwa u soo xulaya ma geeyo anigu intaan odayaal ha fadhiisto saxiixooda aan karaynin inaan bariyo oo idhaahdo reer hebeloo kursigay saara alla adeerayaalo wallaahi waan idii qabanaya idinka keligiin anigoo hadda baarlamaankii qaranka u socda wallaahi keligiin baan adeer adiga ciyaalka kugu dirayaa turkiga allahumma salli calaa maxay islaanta dhakhtar kuu geenaya adiga maxay ahayd beeshin kuu qoray yacni waxyaalaha maqlayseen ee arkayseen in aan doonto oo aan ka noqdo xildhibaan aniga way igu adagtay ninkii maxay ahayd toy ay u hawl yar tahay ma kari karo inaan ugu dhaarto odayaal weliba kuwaan arkay anigoo doonaya inaan qaran wax u qabto inaan ay kuwaasi soo xulayaan in aan dhex tago oo arrinna dhex maro aan arkay way ugu adagtay meel wax laga bedeli karayna maaha meel aan u arkay in Soomaali wax laga bedelayo intay sidan tahayna ma arko laakiin haddii xisbiya loo guuro xisbiyadii loo guuro qabiilku uu halay waa markaa horta markaan anigu isleeyahay haddii aad noolaato ama ilaahay nagu simo taasay tegaysaa waxaana ku hanweynaa in one man one vote la qabto laakiin waa laga kicilay halkii 4.5 ka in lagu hayo odayaashaas ay soo xulaan waa la diiday cadow iyo nacabba way diideen iyo dadaan isqubinaba way diideen one man one vote sidaa awadeed anna waan ku raacsana waa la diidayba intaasi waa warka guud laakiin waxa ogaataan dad wanaagsani waa laga yaabaa guriga hoose inay ka soo baxaan dad aan badnayd waa suurtagal laakiin waxa ogaataan dadka caynkaasi dadkay keenayaan walow ay tiro yar guriga sare yihiin guriga hoose laftigiisa weli odayaashii baa keenaya iyo cuqaalnimo sheeganaya weli wax iska bedelay ma jiro reerkii awood ma laha reerku qof wanaagsan bay soo saari lahaayeen balse waxa loo xil saaray waa nin jaga ilaashanaya oo ka ilaashanaya mid aqoon leh waxbaan idin sheegayaa mid wuxuu ilaashanayaa territoriga yar bay ilaashanayaan qaar oo maxay tahay waxa yaree maksabka uu hayaabo ka ilaashanayaa mid uu isleeyahay waxbuu fahmayaa mid isleeyahay dawladnimada ama waxbuu fahmayaa midnimo wada Soomaalinimo wada oo ma jecla badidoodu waliba dadka waqooyi in dadku yimaadaan oo meeshiisa yar loogu soo galo territorigiisa yar bay ka dagaalamayaan runtii anigana way ku jiraan qaar la dagaalamay runtii oo aad uga dagaalamay arrintaas way jiraan walow aanan afkayga ana joog ka odhanay way jiraan
kuwaasoo territory yar xidhaan ogolaynba midnimada iyo weligoodba kamay hadlin 30 sannadood intay isu yimaadeen dadkaa waqooyi ka yimi qayb ka midi 20 baarlamaani weli isuma iman 10 isuma iman xitaa may hadlin dowladaha iyo xukuumadaha iyo baarlamaanka weli intay dhex yimaadeen may keenin suggestion bal midnimadii sidee lagu keenayaa sidee bay ku imanaysaa ugu hawl yar dalkani haddaan waqooyi iman constitution ma jirayo shuruuc marka haddaanu dal lahaynina ma shaqaynayo kuwa maanta waxay doonaan sameynaya dadka leynaya ee dowladda dhan maamulada dhan dagaalka ku soo qaadaya ajaanibka wata ee cadowga wata wax lagu qabta male waayo waa 4.5 ninna lama hadli karo reerkooda sidaa awadeed waxa weeyaan kuwa halka joogaana ma ogola inay cid ugu timaado welina ilaa maantana ma ogola in cidiba ay u soo gasho cid midnimo doonaysa iyo qof Soomaalinimo doonaya oo ka naxaya kuwa halka jooga ee xagga jooga tahriibta u qorantay ee shaqala ee caafimaad la ee school la ee maanta intay halkan yimaadeen oo waqooyi ka yimaadeen wadooyinka jiifa ee dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxay ma ogola in magaca iyo manfaca iyo calanka Soomaaliyeed oo maanta wali Soomaali ay ku jiraan inay xaqoodii xuquuqdooda ka helaan ma ogola waxa xidhay territory-ba in yar baa xidhatay oo aan ogolayn in xitaa Puntland baa ku jirta inay dadka Soomaaliyeed waxay tahay qastamooyo maamulkooda kuwa halkan jooga xitaa qaar badan ma ogolaynba inay ummadda Soomaaliyeed wax la yeeshaan iska daayay laanta iyo maxay tahay Soomaaliland taasi waa information guud aan jecelahay dadka Soomaaliyeed la wadaago ilaa inta lagu soo dooranayo qofka ama xisbigu ka imanaya ama lagu soo dooranayo qofkani waliba qolada reer waqooyiga war midnimo muxuu ka qabaa muxuu u socdaa muxuu ka qaban karayaa walaalaynta Soomaaliyeed midnimada Soomaaliyeed wanaagga Soomaaliyeed isu keenka Soomaaliyeed ilaa shuruuda lagu xidhayo waxaan filayaa sidaasay u kala laalaadaysaa taasi waa informationka guud haddaan soo noqdo deni waxaa arkayseen maalmahan doorasho 3 degmo la qabtay deni kollayba waa iskaga soo horjeednaayo waa iskaga yar waxaynaya deni wuxuu yidhi madaxweynuhu iimo hambalyeeyeen su-aasha isweydiintani waxa weeye caawa aan ammaan wax uga siiyo qoladii reer waqooyi daahir yaale waa 6 degmo ingiriiska waxa ku qaybsadaan wax 6dii degmo ingiriisku ka tagay gobollo laguma qaybiyo baarlamaankooda waxa ku dhisan yahay 6dii degmo 3 beriga lahaydana 2 badh lagu dhuftay ninkiiba 2 badh baa lagu dhuftay saasi baarlamaanku ku soo baxaano xaqaybtu tahay daahir yaale degmooyinkii hore uu ka tagay dawladii hore ay ka tageen iyo 6dii degmo hore ingiriisku ka tagay 6 gobol ah imika xisaabsan inta one day buu ku qabtay doorashadeedii tii dawladaha hoose one day buu ku qabtay qashar kama dhicin tii baarlamaanka maxay ahayd goboladii ka soo baxay baarlamaanka lagu sheego one day buu ku qabtay laba tii saddexaad iyaduna dawladaha hoose waa one day baa lagu qabtay tii afraadna one day bay ku qabteen qolada aan xoogayga aad iyo aad uga soo horjeedo aad u canaanto yani dadka beenta loo sheegay ciidada lagu horjoogo kuwaasi dhowr iyo 10 degmo marka 6 hore lagu daro filay 20 degmo inay meelaha dhigaan 3 degmo ma garanayo marka halka laga yimaado afarta doorashada mise 5 bay marayaan one day bay ku qabteen adduunku lacag ma siinin adduunyadu uma soo gurmanin waxba hayada waxba ma siinin kama caawin waxba kaga baxayba ma jirin maayo meesha nabadda waxba kuma baxaan dadku iyaga iska doonayo mid reerkooda bay doonayeen inuu ugu ridaan u soo baxo dadku iyaga alla diriya waxa maanta inoo timid Puntland oo 22 sanadood maamul ahayd ayaa 3 degmo ma hal gobol 3 degmo midba gobol ku taalo waa 3 degmo ayuu ka qabtay doorasho ka qabtay anigu ma garanayo waxa lagu yeero wuxuu haystaa waxa weeye waa 3 gobol 2 gobol iyo badh waa Boosaaso Garowe iyo Gaalkacyo badh waa 2 gobol iyo badh Soomaaliya yaa dhacday 5tii gobol ee Soomaaliyeed maalin bay ku qabteen oo 5 doorasho maraya runtii way ku amaanayeen waan rabshadi ka dhicin waxba ka dhicin waan ku amaanayaa maxay haytay maamulka Soomaaliland waan ku amaanayaa runtii maamul goboleedkaas maanta
iyagoo cid ammaan weydiisanaya ma arago ha naloo hambaliyayo adduunyadu maan maqal maanta saddex degmo oo saddex gobol ku kala yaala maan garan hal gobol waan gartay oo afartiisa degmo la qabto waan gartay taas waa doorashaan odhan karaa haddii gobol afartiisa degmo la qabto oo maayarka la doorto gobolku marka degmooyinka doorasho laga qabto ladsi waa afar degmo oo gobolku ku jiro markaasaa maayar degmooyinkii loo dooranayaa mid walbana waxaa la dooranayaa guddoomiye maayar degmo marka la doorto maayarkii gobolka waa in la doorto ay doorasho ka dhacdo gobolkiina ka dhacdo degmadii gobolka ku taala saddex degmo aan maayar isku xidha lahayn maayar isku xidha male degmooyinka xamar waa taqaanaan sidii Soomaaliya ay ahayd marka doorashada jirtay maayarka gobolka meesha laga xukumo degmada laga xukumo ayaa maayar waxa jira xukumo saddexdan degmo bal yaa kala xukumaya yaa haystee maayar u ah midba iskeeday dawlad gooniye u tahay dadkoo haddii aad fahmaysaan iyo haddii aad fahmay waxa jeclay dhalinyarada dambe may arag doorasho saddex degmo oo saddex gobol ku kala yaala degmo kaliya ayaa kaligeed u madax bannaan oo noqotay maamul gooniya saddexdii degmo gobolka la ahaa laguma qabanin marka degmadani gobolka kaligeed lagu qabtay maan garan doorasho noocan adduunka horena ugamay dhicin waxaa jira waxa la yidhaahdo test la yidhaahdo oo la test garaynayo oo dadka doorashooyinka gelaya ka shaqaynaya ayaa hool lagu xareeyaa siday doorasho ugu ridayaan oo kale inta cid loogu yeedho dad loogu yeedho ayaa test laga qaadaa sidaasaa loogu ridayaa sidaasaa loo samaynaya sidaasaa warqadda la samaynaya inta hool lagu xareeyo waan garanayaa waa dadka doorashooyinka qabanaya loogu talagalay inay qabtaan baa test lagaga qaadaa testigaa waan garanaya ma testigaasaa u jeedaan maan fahmin gobol dhan degmo lagu qabto degmooyin kale aan lagu qaban man garanayo marka waxaana fahmayninba waxa uu ku doonayay in loo hambaliyeeyo waxa kaloo ka daran ra'iisul wasaaraha hambaliyeeya xukuumadda waxa uu kala yaqaano madaxweyne iyo ra'iisul wasaare ma garanayo waxa laba dawladood buu kala yaqaanaa ma laba maamul buu kala yaqaanaa hadduu ra'iisul wasaaruhu hambaliyeeyo waa xukuumadda madaxdii xukuumadda iyadoo aanan garanayninba wax lagu hambaliyeeyay aanan garanaynin oo uu qabtay haddana yeelkadeeda hadduu test sameeyey saddex degmo de ma garanayo ra'iisul wasaare iyo madaxweyne waxay kala yihiin hadduu mid u hambaliyeeyo iman hadduu wasiirka arrimaha dibadda hambaliyeeyo ka gudaha ayaa xisaabsan ka gudaha hadduu hambaliyeeyo saddexdaad degme testiga iyadana waan gartay intaasina waa in yaroon aan isleeyahay bal inta aqoontayda aan garan waayey doorashada noocana ee aan adduunka hore loogu arag iyo hambalyo uu doonayo wax loogu hambaliyay aan anigu garan waayey haddii dadku garanayaan iga aqoonta badan leh waa sax waxaan leeyahay saaxiibayaal waan qaadanayaa haddii ay iga aqoon badan tihiin ciddii iga aqoon badani way ii sheegi kartaa ii soo qori kartaa ceeb ma aha waa intii aqoontayda taasina waa taas waxaa jirta waxaan ku soo qoray yaa ka dambeeya dagaalkan guriceel iyo ka socda iyo hawshiisa maalin hore waxaan idhi dalka Norway baa ku daray dalalka yacni lugooyadayna gaarsiiyay dalka Norway kuma jirtee badaha way dadka u cabiraan internationalkay badaha u cabiraan Norway marka iyagu badahaas ay cabirayeen internationalku UN inay siisabay ahayd ee shirkad bay ahayd laga leeyahay ka register garaysan Norway ninka wata shirkadaasna Norwegian maaha marka dad badan baa soo weydiiyay igu yiri Norway maxay samaysay khalad baa dhacay marka Norway dawladeedu waxay shaqo ku leedahay ma aha laakiin shirkad weeye oo Cabdullaahi Ciise bari contract iyo 1978 oo intay baadhay badaheena dabeetana dawladii eriday maxay tahay eedigii eriday markay baadhay lacagna inagu lahayd tiiba ina daba socota marka way ka register garaysanta Norway laakiin dawladda ma aha taasina waa qolooyin badan oo arrintaas igu yiri proof naga sii intaas ayaan jecelahay inaan ku soo gabagabeeyo waxa ay raacda waxay yiraahdeen dadku halka waxay ku qoreen qolooyin reer Puntland iyo Soomaali oo dhan oo qoraysa baan arko leh 54 sanadood doorasho one man one vote lagama qaban dalka si fiican u dhageysta intii naasiyay maxaa tii dhowr boqol soo maaha bal mar u taabto dalka dadka aan soo dhaweynay waxa la idinku yiri 54 sanadood lagama qaban 69 kiiba doorasho one man one vote ugu dambeysay dhalinyarada si fiican u dhageysta kana gaarsiiya 1979 anigu doorashaanu galay waxay ahayd one man one vote 79 qoro waa qorta dhalinyarada beenta lagu akhriyay
wax la galay safaf dhaadheer oo xabxab iyo biyo la siinayay wixii xabxabku soo gaarana la siinayay lagu qaboojinayay biyana la siinayo safaf intee la leeg baanu galay anigu waa ku jiray waa doorasho lagu riday doorasho yaa ka soo baxay war xisbiga yaa ka soo baxay xisbiga waliba ahayd waxa ka soo baxay golihii shacabka golaha shacab yaa garanaya gurigii golaha shacabka kuma garanaya ee weynaa ee East Africa ba ugu weynaa golaha shacab guriga dhisto sheegay intii narka ku jirta hasiyareynina wala hasiyareynina wariya hasiyareynina sheega war golaha shacabka yaan garanaynin dumar fara badan baa ku jiray golihii shacabka soo galay doorasho degmooyinka iyo gobolada inta ka soo galaysay golihii shacabku muxuu ahaa baarlamaankii buu ahaa waxa la yiri baarlamaan ma inuu lahayn golaha shacab baynu lahayn golaha shacabku maxaa la yiraahdaa baarlamaan ma ahay marka af Soomaali English la diiday oo baarlamaan weeye golaha shacab waa maxay u taqaanaan maanta raalli hada oo yar duraysanay golaha shacab waxa weeyaan golaheena shacabka maanta fadhiyo weeye yaa yiri ma inuu lahayn baarlamaan dooda oo dawladda u yeero la dooda dictator dhalinyarada waxaa loogu sheekeeyay si fiican u dhageysta oo walaalayaal hadday iyagu waxaa idinku sheekeeyay bal annagana in yar anigana iga dhageysta doorasho one man one vote baa la galo maalin lagu qabtay dalka oo dhan degmo iyo gobol kasta tuulooyin ma garanayo tuulo ma joogin laakiin waxaan garanaya degmooyinka iyo gobol kasta oo Soomaali 18 gobol iyo 9 iyo 2 degmo soo maaha waa lagu qabtay doorasho lagu qabtay dalka baarlamaankaas ka soo baxay golihii shacabka loo oran jiray simbalaasaad وهي دقدير سياد برا دوكتي وقفت سياد برا وقولي كير ساسا نصدر سنة هرتد بنتي أيه رواية هان دتك أي كوا هيستان دليرة سي كوا هيستان أو قل يرو مدو كوا هيستان ونورشود هالكا أي كوا بابيان أيه واحد سياد برا مكان أنا جيبي ينادم با نكاس حياتي سياد برا تأفرض إسرائيل نكاس أص النوي ما دوا سياد برا نوي ويا قبيل بينك كدون يوح قبيل هدار ديك صوت دوطة لكن الديمقراطيات حسبيا وبصوت دورنا يو قوي ودتك أقانت معايا تلا قلبي على دن عبارة دورة دونا أنتي إن قبيلك كحرية قبيلتك كحرتي ما دونا يو أوف بارد تاس مركا قلنا سا إن تاس لك فتمية قلنا سا صد السنة هرتين بنتي كبقى نيسا عيال كودا كسي بتشيا هي أنت يري وكفتن أنت أسرع doorasho one man one vote waa ayaa la qabtay 79 yaa haystay dalka 79 waa dalka yaa haystay imise sana ka dambeysay yalla idinku sheekay waliba maxay ahayd mid waxay ahayd xisbiye ma yahay laakiin tirada iyo sadadka u foodayay qaar waxa ku ridayeen sanduuqa kale hal xisbu buu ahaa yes hal xisbu buu ahaa laakiin markii maxay tahay 87 la marayay dawladdu waxay doonaysa inay xisbiya samayso shuruucdii baa la sameeyay xisbiya in la sameeyo ayaa la doonayay kuma igu diidaneen been sheegaya xisbiya lama wadin shuruucdii lama qoraynin eedisman lama qoraynin shuruucdii in xisbiya lagu soo tartamo oo golaha shacabka xisbiya loogu soo tartamo kuma igu diidan wax badan baa la idin sheegay waxba ka jiray qaar badan baa waxay yiraahdaan adigu siyaad barro badniyo amaanta siyaad barraad amaanta iyo kacaakiba amaanta baan idin sheegay caawa وادق دق دير قارية رالي هو بوي رالي هو وادق دير رالي هو حال باك بحيا رتاس اك واحد هذا هو امان ما امانه واد دغيستا سيفي واريارين يا سومالي ما امانه انو وحبا حاشيغا وحو قبط حاشيغا wuxuu fuliyay maxaa sheega wuxuu dadku soo kordhiyay dalka intaas sheega qofka igu leh muu qabanin waxa aad leedahay wuu qabtay hayladooda Soomaaliyeed waliba qolada reer waqooyiga ma been bay doonaya beentii loogu sheekeeyay dal iyo dad lagu baabiyay caruurtooda lagu taariiriyay nolosha maanta ku jiraan bay wali doonayaan anuu ma garanayo taas kuwa beenta ku raaxaysta iyo qabyaalada ku raaxaysta waa anuu ma garanayo laakiin waxa weeye أبو محمد أبو رياض واحد يشتا أنتي عشاقي حكومة داسي أنا لو أقلت الدلك هي الدلك بالمركلي واحد قلت هذا كمان تيران وحبا أما الله ما يراح ضغطاس
أمان معها هدان ما تيناهضو وحاس سوق بتمعنيه هيدو وحقبت كيبا الشيغي وحي أمدنا فايدها أمانتو نوع معامها سوماليدو waxaan kala aqoonin mucaarad iyo muxaafid iyo waxaan kala aqoonin amaanta goolwadaha oo wax uu yaqaanaan bishii October bay xitaa wax xumaan u bixiyeen October wax kale u bixiyeen soo ma taqaanaan reeqooy October waa bishii ilaahay ba bishalle ay wax kale u bixiyeen waxa inta ay soo raacda yani waxa lagu leeyahay waa mucaarad waxaan mucaarad ku ahay waa dadweynaha Soomaaliyeed fikradooda ay ka hadlayaan xisbi doonaya maamulka inuu ka rito maamulka jira ayaa mucaarad leeyahay markaad xisbi tahay mucaarad baatay waxaad muxaafidtay marka dawladda ku jirto ee aad xisbiga dawladda ku jirto ama dawladda ku jirto waad muxaafidtay laakiin dadweynaha Soomaaliyeed fikradooda ka dhiibanaya ma aha mucaarad iyo muxaafid waa dadweynaha Soomaaliyeed oo siday wax u arkaan iyagu dhiibanaya marka dadku sidaa inay u kala gartaan baa wanaagsan sidaas fiican in loo kala barto oo aanay ummadda Soomaaliyeed shacabkii mucaarad iyo muxaafid iyagu lahayn waxay arkaan ee xumaan iyo wanaag ay sheegayaan daan maanta ilaado farmaajo musuqmaasuqii buu joojiyay dadkii mushaarkii oo qoray musuqmaasuqii la cunay buu joojiyay tahriibtii ciyaalkii ka joojiyay shaqaabuur buu sameeyay dawladii inuu gumaysanayay ee inuu yeesho iska celiyay sharafteennii iyo magaceennii soo celiyay inta militariga buu dhisay inta haddaan idhaahdo mi khalad baa sheegay miyaan amaanay mise waxa uu qabtay ee life-keenu arkayno mise xasadka iyo xumaanta inugu badan iyo xiqdiga inugu badanoo maba sheegi karo wanaag ma lama ogola in la sheego xumaan mooyaane ya raalli baa iga ahaanaysaa waxaan jecelay inay soo baxaan aniga waxay waa dhiirigelin inay dadku dhacle soo baxaan oo ummadda sida bini'aadanka adduunka u nool yahay ku dhacle oo ku dhici kara qofku wuxuu qabtayna inay sheegaan wuxuu xumeeyeyna ay sheegaan aabihiina ha ahaadee aniga intaasaan u hadlaa wax kalaba uma hadlaba inay dadku dhiiradaan oo ku dhiiradaan inay reerkooda iyo adeerkii inuu khaldan yahay ay ku dhici karaan oo sheegi karaan inay beeshoodu hadday khaldan tahay iyo maxay tahay suldaankoodu uu u sheegi karo inuu khaldan yahay simbal intaasumaan anigu u jeedaa xumaanaan reer waqooyi nacabahay maaha xumaanaan qolada isaaqa nacabahay ma aha keliya waxaan u sheegaa war khaladkii laydin dhaamiyey been bay ahayde yaan ilaahay idinku cadaabine beenta iska daaya cuqdadana iska saara raggu wuu istilaa rag baa ahaydeene dumarkii baa baroortii joojiyey iyo waa laydilay waar taana iska daayo dhadig ha noqonine waa dawlad baa la dagaalateen rag baa isdilay dawladdii waa qalliteen 30 sano dilay layga kacay maxay tahay la duuf baa layga war waxani raganimo baa hawale si ragga noqda sidii raggu ahaan jiray noqda intaas ma dardaar ku siiyaa oo 30 sano niicdan nagala hada iyo miicdan iyo jiicdan intaas ma shay intaasna waa inta raggu isu sheegi jiray ee dhaqanka inoo ahay beenta layna ku xidhay ee layna ku baabiyay ilaa maanta layna ku shaqayo ee wixii ni 10 taajir lagu leeyay aruurtiina tahriibtay ee maanta ay xamar u soo baxay ay u imanayaan dhamaantood حمد عاين أو إيمان أيام مقدسة عاين يفرماتها عاين حكومة دي سبان وحيد سكولات كان معنا كبحي ما لا شقو قويس بالله حلا مالي والبا أنت نقد جاي وين تاسو سير أقوسكم به لسان أقوس به لسان رنتم من تاو شغال أنت أنا وحلاي نكر رنت يجد ديريو إركا كسرعة إركا وبتخاجة هي آخرة هذا هي أفعسة واحد كل شيء كي يقول علومه إركا كسرعة كيقول وحبا كما جيرانو الى الدود بالله الى الدود كيقول وحبا كما جيرانو لكن رنت اخره ابي ku anfacaysa ubadkaaga anfacaysa reerkaaga anfacaysa ka runta diido beenta ka soo cad naartana wad ka soo cadaysa waa run nabigu wuxuu wixii been soo sheega ee been jeclaada runta diida aniga ummadayda ma ahuurin dadaan ummadii nabiga ahayna garan ma halkay ku dambeeyso marka qolada idaar reer waqooyina qaar badan bay igula culubay qaar badan ويقول غير كاب دعبتي كالقولة تهاي ساق دعبتي أما محي هاي شخص حقيقة دعبتي وأنا من نبعي مرغير بان أنا يقول لي أنا النعبي غير بوح ما كمان شيغانو لكن رواية كوا قرار سنة إيه قميي إيه محي هاي وحي لحيان وضا لحيان إنتي قاتين
caruurtoodii khiyarahoodii milyaneerada kaga noqday caruurtoodiina tahriibiyey ee dawo u diiday dhakhtar u diiday iskuuladii kala wareegay ee caruurtoodii tahriibta u dhamatay waa kuwaan la hadlaa kuwaasa waxay samaysteen guruubo u dooda oo xaaraanta iyo cuqubada iyo qabyaaladda iyo eexda iyo xaqdarrada iyo dulmiga ugu dooday samaysteen kuwaasi si joojin mayno way sognay way sognay si joojin mayno boqolaal iyo kumanaan dhalinyaro ah baa soo bixi waa duray waa reexaya haysan raalli ahaada waa soo gaabinayaa aad baan idiin salaamaya ummadda soomaaliyeed aad baan idiin salaamayaa guriceel un baan uga jeeda ku dambaysiinaya guriceel waxaa soo baxbaxaya ee la sheegaya naloo sheegayaa dowlada ajaaniba ayaa xagga Kenya iyo dowlado kale ayaa soo hubaynaya qolo jaarkiina kontraadka qaadatay maamul jaarka maamulada gobolada ka miina waxay qaateen kontraadka sheegi mayno waxba odhan mayno laakiin ogaada dagaalka halkaa ka socday dagaal laga hagayo cadowga hagayaabay ahayd waa niman muslim oo Soomaaliyeed oo sunna dhamaanteena wada sunnayna sunna ciidis kama la guruubna malaha mana sheegan karo ma oran karaan ahlu sunna waa anaga jamaaca waxa weeyaan waa jamaaca waa dad waa jamac marka ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa guruub kaliya iskama laha mana sheegan karaan marka aan wax uma leeyahay war ka daaya oo dawladda iyo ajaanib baa inta dagaal inagu haya marka taasina waa la cadeynaya anuu kulli sheegi maayo dadka Soomaaliyeed way iska ogaan doonaan ilaahay gobolada dhexe waxay naga siiyeen nabad in badan bay goboladaas colaad ku jiraan gobolada arrimo badan baa ku jira oo dawladda shisheeye ay ku jiraan sababtana waan idin sheegayaa dadka dagaaladaas uga socdaan ee loo deyn laayahay ogaada gobolada dhexe waxa ku jira bacdanta ugu qaalisan baa gobolada dhexe ku jirta soo ma ogin 7 ceelo aynaan sheegaynin meesha ku kala yaalaan oo gobolkan maxay galguduud galmudug ka tirsan 7 ceel oo ay ku jirto uranium yaa garanaya oo dawladda laga hortaagnaa naam kale laga hortaagay inta wax ka badan sheegi maayo macdanaha kale sheegi maayo dalka dhan iyo geeska Afrika waxa ku filaan lahayd gobolkaas galmudug baa ku filaan lahaa cadow badan baa ku furan intaana waan idin sheegaya 7 ceel ee diyaarka ay uranium ku jirto وقبلكاس كترسية تدبر مع ذنود وكلا جونية بكتير وعاد وقارئ قبلكاس الله يراشده عدو بدل ما كوس على إلهي يسيء كنا نبضها السيو ينها فهمان إلهي واحد كرتين بدك الدجاج كاس أي فهمان ما تهب يحدد كده على الصوت أو لسه سج محاولة قدر لسه صو أو كونترات كم ملعب بحنايسو حدي عي ما تتحس بارولك هو بيوجد شراء بدنا حد ما تلا سوق هذا المقري سجى وجوه رينيا قبل كاس نور الجورينا قبل جسوا يجونا nabad bay heli lahaayeen oo dadku markay waxalaan nabad bay helayaan yuraan inta hadii loo iibiyo 7 ceel ah kontraad wala dawladda ah yaani ila sharci ila la bixin ay jiraan ilaahay iyaga nabad ku soo rogo waan idin salaamaya dadka Soomaaliyeed oo gaarsiiyo ummadda Soomaaliyeed ta historiga wuxuu bal kala faa'iida qofkii ila doodaya ee leh waxba kama jiraan waxa sheegayo waxa fiican adoon caydtamin oo dambaabin oo waxba sameeyay waxa ugu fikradeyda dimuqraadiyadda baro إلى ضد يسوق وكان يسوي جوابه وأنا قلت جواب ضدك فكرة هذا وني سوق بي أنا قلت فكرة دي دوما قبنا يسوي إلى تهاي واحد يقول بيني نسوق فلو بس عشان أدبر ذي سلامة ضدك السلام عليه